بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا كالكال بودكاستي oo ah madal aynu kula sheekeysano dhaqaatiirteena khibrada ah kuwaasoo aan uga faa'iideyneyno aqoontooda iyo waayo-aragnimadooda bulshada Soomaaliyeed. Programka qaybtiisan waxaynu ku wareysan doonaa oo aynu ku sheekeysan doonaa Dr. Saalax Sheekh Xasan oo ah dhakhtarka maqaarka cidiyaha iyo timaha ee isbitaalka Kalkaal. Dr. kusoo dhawow Kalkaal Podcast maanta waxaynu rabnaa in aynu si fiican u falanqeyno cudurrada maqaarka markii inta laga soo tagana waxaan rabnaa inaan sheekeysano oo aynu bulshada uga faa'iideyno safarkaaga caafimaad laga soo bilaabo Saalax ilaa iyo ka noqotay Dr. Saalax. Markii waxaan ka su'aasha ula jeedaa in markii hore ahayd Saalax oo aad dhakhtar noqon oo arday ahayd ilaa aad ka noqotay doctor ama dhakhtar ku takhasusay maadada dermatology-ga. Dr. soo dhawow waxaan rabnaa in aan ogaano safarkaagii caafimaad laga soo bilaabo Saalax ilaa Dr. Saalax. aad iyo aad u mahadsantihiin aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahay Kalkaal podcast soo dhaweyntiina diiranna waa idinka mahad celinayaa. Dr. soo dhawow waxaan rabnaa inaan ogaano asaaskaaga waxbarashada meeshii aad ka soo bilowday waxbarashada from school to jaamacad to takhasus to dhakhtarnimo maantay inaan noqotid doctor bulshadu ay soo aado oo ay jeceshahay oo daaweeya cases xasaasi ah. waxbarashadeedii hore waxaan ka imiday baadiye waxaan ahay dadka magaalada Muqdisho soo galay takhasuska iyo inaan jaamacadda medicine ka baxay waxaa ka horeeyay inaan soo ahay xer oo markii hore qofka markuu baadiye ka yimaado dugsigayga quraanka waxaan ku soo dhameeyay baadiye marka dugsiga quraanka soo dhameyso sida caadada Soomaalida u ahaa jirtay waxay ahayd in ay cilmigi raasadaan cilmi dheeraad soo baadiyaha la iga soo waday waxa la keenay magaalada Muqdisho waxaan ka bilaabay hayaankayga waxbarashada waxaan ka soo bilaabay inaan noqdo qof xirow ah oo kitaab raacdo oo cilmiga culumta dhigto diiniga kadib waxaan u gudbay in aan madaarista ku biiro iskuulka aan ka soo baxay waa iskuul hoostaga ee la yiraahdo magaciisa Maxamed Xarsi Nuur Siidi hay'adda Zamzam kadib markaan iskuulkii dhameeyay waxaan bilaabay in aan ku biiro jaamacadda Banaadir qaybteeda medicine surgery meeshaas waxay ugu qaadatay in aan ka takharujo 6 sano kadibna waxaan ka howlgalay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ee aan ku soo shaqeeyay internal medicine kadib waxaan go'aansaday in aan hayaankani dhinac kale u bedelo oo aan raadiyo takhasus leeyahay markaad journal medicine soo dhigato ayaa baad diyaari kartaa masterka marka hayaankayga waxbarashada waxaa nasiib u yeeshay inaan aado dalka China waxay ugu soo qaadatay inaan ka soo qalin jibiyo 4 sano oo aan dhiganayay takhasuska hadda aan ku shaqeeyaa cudurrada maqaarka cidiyaha iyo timaha iyo cudurrada galmada la iskaga gudbiyo ee xiriirka la maqaarka waxaan ka soo baxay jaamacad la yiraahdo Jilin University ee dalka China hayaankayga masterkana waxaan aaday 2019 wuxuuna ii soo dhamaaday 2023 awaakhirkii bifadlillahi wa mannihi takhasuskaas inta sameynayay waa iska taqaanaa wadan markaa tagto oo luqadda ka duwan tahay oo Chinese ninkii baadiye ka soo galay in uu wadan intaasoo qalqi ay ku nooshahay ee u shila tuuro oo dhulka ay dad le ku dhacaysay si u badan yihiin in lagu sii dhaxdeeyo oo challenge-gaas iyo taxadiyaadkaas aad aqbasho ee aad cilmi ka soo kororsato China waxay ahayd experience badan takhasuskana wuxuu ahay takhasus inaan China ka soo diyaarin munaasab u ahay leano maxaa yeelay
markaa maqaarka baranaysid waxaa shardiya in aad population badan hesho cudurro badanna aad daaweyso si aad u ogaato kiisaska rer ay tahay in la diagnose gareeyo ay dhif iyo naadir ay tahay in diagnosiskeeda saxda la saaro marka China waxay haystaan population badan cudur aan ku dhicin ma jiro waa wadan dad badan oo population ku nool yihiin marka China ayaan fursad u helay inaan takhasuskaas 4 sano residency ka sameeyo isbitaal aan soo dhex joogo thesis aan difaacdo article aan ka qoro marka waxay aheeday fursad oo dahabiya kadibna heeda qofka iskama sii bixine meeshaan ka imid baan ogaayay baadiye inaan China tagay haddana wadankayga u soo laabtay si aan ugu shaqeeyo dadkayga wixii aan soo bartay inaan dadka ugu faa'iideeyo leanahu cilmigu waa amaano dad baa ku baray waxa la yiraahdaa 3 qofka barto xataa yawmul qiyaama inqidaac kuma dhaco amalkiis waxa kamid ah cilmu yuntafacu bihi in bulshadii kaliya aan u shaqeynin aan ahay macallin Soomaaliyeed ee jaamacada wax ka dhigo ahna haddana dhakhtar physician oo maqaarka iyo cudurrada ku dhaca la tacaala waa tahay doctore waxaan u sheegtay in aad xayaankaaga ka soo bilowday baadiyo waxaan sawiro karnaa marka wiil yar oo dhalinyaro oo baadiyo ka yimid waxbarasho bilaabay haddana isagoo Muqdisho oo caasimad ah ay caasimadii ayadoo Muqdisho oo caasimada ugu horeysa caasimad baxay oo China tagay China waxay ka mid tahay wadamada adduunka ugu waaweyn bal ka waran dhaqanka luqadda waxbarashada see ku saameysay runtii waxa waaye horta waxay aheeday taxadiyaad oo qof kasta oo China tagay oo la kulmaayo waxa kamid ah luqawiga yani luqadooda waa afka Chinese ku hadlaan af Englishkooda professorada bes ku hadlo in saaxadii aad wax ku barato marka hore waxay Chinese ku siinayaan in luqadooda barato marka ugu horeysa luqadooda bartay marka luqadooda bartay kadib ayaan waxaan sameeyay in aan hadaba la kama qaadiyahay aan ka daraaseeyo maqaarka iyo cudurrada ku dhaco jaalanjiyada marka oo dadka qabsanayo caadi qofkii China taga waxa kamid ah in aad dhigi wayso sheygaan rabaa leano wax ku fahmaayo ma jiraan marka waa ina faraha taagtaagta marka ugu horeysa faraha taagtaagi maalinta dambe tacaamul bayna naas ayaad baranaysaa dadka sida loola tacaamulo luqadaha lagu la hadlo dan kadibna adoo marka dambe dadka soo dhaweey dadka dambe soo dhaweynayo dadka dambe airportka ka doonayo dadka dambe turjumayo ayaad isarkaysaa leano maxaa yeelay marka dambe adoo dadka u turjumayo oo airportka ka soo dhaweynayo ayaad arki doontaa taasna waxay ku imaan kartaa dhiiranaantaada iyo inaad dhiifoon tahay oo aad ka bixi karto saaxadaas marka challenge-ga ugu weyn ee qof kasta oo China tagay waxa waaye marka wadanka tagto ba kuma sameysno baska waxa lagu raacay ama mid ruuga kuma sameysno lacag waxa ku bixinaysid oo ayaga waxa waaye iskaan baa maanta la saartaa soo marka intaad howlaha iska fadhiisanaysid waa inaad qof oo markastaba baska ka baxshaa meesha kugu soo dhaweeyaa caafimaadka ku soo marsiyaa yani waa wax challenge oo dhib badan oo rafaad badan waxa ku sii weeliyo hadhow hadana challenge-yadii suuqa iyo magaalada markaad aadaysid iyo wadankiyo hadana kulligiis Allah wada Chinese marka waxa ku qasbanaan in luqadooda barato soo aniga marka dadkii ay saaxada u saamaxda ahay in luqadooda barto dadka u turjumo dadka soo dhaweeyo absolutely doctor waa maasan tahay si aad u faahfaahsanayaad nagu faahfaahaysaa hawshaas doctor waxaan rabnaa inaan ogaano waxa jira kuliyado badan oo qofka markuu medicine ka baxo uu diyaariyo shakhsiyan maxaa kugu dhiirigeliyay dermatology-ga inaad diyaariso maadada dermatology-ga wadanka markaan ka tagayay gaab fara badan baa ka jiray oo limitation oo doctorska haysatay
marka waxa igu dhaliyay Soomaalidu cudur baad arkaysaa laakiin diagnosiskiisa ma taqaanid cudur kale qof ayaa arkaysaa marka baaxadda cudurrada ku dhaca Soomaalida oo kala duwan qof aad u fiirsadana rabo markaan arkay ayaa waxa igu dhaliyay inaan dermatology ayaa aan diyaariyo markaan baxayay cases Soomaaliya oo hadda ya igu soo celiyo saan ugu jawaabo haddan cilmigeedu soo bartay aan isdhahay ayaa jirtay oo aanan loo helin xal markaas Tore waxaad muddo ku shaqeynaysaa kuliyaddan dermatology-ga waxaana hadda ka shaqeysaa Soomaaliya gaar ahaan isbitaalka Kalkaal caseska ugu badan ee aad la kulanto ama caseska ugu badan ee Soomaalida si guud ay uga cabtaan oo maqaarka ku dhaca maxay yihiin wallahi aniga wadankeenu waa tropical medicine oo waxa waaye tropical country oo ku taala geeska Afrika cudurro annaga noo badanaa jirto iyo cudurro aan dunida kale la sheer gareyno horta si common cudurrada maqaarka ku dhaco waa badan yihiin oo maanta waxaa la yiraahdaa 300 oo kun wax ka badan oo cudur ayaa maqaarka kaliya ku dhaco kuwaasoo rabo u fiirsi iyo eegis laakiin annaga Soomaalida waxaa noo badan annaga cambaarta noocyadeeda kala duwan inay kugu dhacdo waxaa noo badan infectionada oo bacteriyada keento inuu jirka maqaarka ku dhaco waxaa noo badan xasaasiyada waxaa noo badan isnadaamiska waxaa noo badan busbuska oo feral keeno waxaa noo badan cudurrada autoimmune oo yani in your own cell maqaarkaadu difaaca jirka inuu maqaarka weeraro sida cudurrada cadcadaadka oo fataliigada ay kamid tahay psoriasiska ay kamid tahay soo cudurro common nagu ee nagu badan ayaa jiro dunida kale cudurro ku badan ayaa mararka qaar Soomaalida dhexdeedana ku dhici karo cudurro annaga gaar ah la nahnay intaas sana la tacaaleynayna waa tahay doctor mar walba waxaa maqalnaa qof uu iska daaweeyo ama dhaqtar maqaar u tago qofkan allergic baa haya xasaasiyada haysa doctor waxaan rabnaa si faahfaahsan marka aan u ogaano allergigaas muxuu yahay xasaasiyadaas maxay u kala baxdaa maxay tahay xogtaas baan rabnaa inaan ogaano doctor Soomaalida horta wax kasta oo cuncun ay u arkaan waxay ku leeyihiin xasaasiyad bay hayso inay arintaas ay ku dhacdana waxa waaye in loo fiirsan xasaasiyadu noocay ayay noqotaa sideyna jirka ugu dhacdaa xasaasiyadu waa noocyo badan tahay waxaa kamid ah cudur yar urticaria oo heavy ah oo qofka jirkiisa uu isla barbarayo Soomaalidana ay u taqaana dheedheero waxay mar kala ku qaldaan cudur isnadaamis la yiraahdo jiro xasaasiyada u eg marka wuxuu ku leeyahay waa isxoqaya haye hada isxoqdinne habeen iyo maalin ma isxoqda wuxuu ku leeyahay marka habeenkii kaliya isxoqa maalintii ma isxoqo soo marka xasaasiyadu ayadu waxa way isxoqitaankeeda habeen iyo maalin ayuu qofka isxoqa jirkana cuncunay ku keentaa jirkana uma kala socno sidoo kale cagsi waxa ku ah cudurka isnadaamiska asiga habeenkii bisa la isxoqa dadka waaweyn inta qoorta ka hooseysa iska xoqaan ilmahan ilaa wajiga uga dhacda qofka habeenkii uu isxoqaya maalintii isma xoqay soo marka xoqitaan kasta Soomaalida waxay u haystaan inay xasaasiyad tahay waxyaalaha kale xasaasiyada lagu qaldo waxa kamid ah oo xasaasiyad loo maleeyo laakiin aanan ahayn xasaasiyad waxa kamid ah cudurka ku dhaco wajiga ay Soomaalida u taqaano cudurka wajiga ku dhaca ay Soomaalida u taqaana findoobka asigu findoobku ma aha xasaasiyad laakiin Soomaalidu waxay u haystaan xasaasiyad finanka wajiga ka soo baxo Soomaalidu waxay u haystaan fin kasta oo wajiga ka soo baxo xasaasiyad laakiin xasaasiyad ma findoob waay bacteria keento qofka inuu marka waxa la rabaa kala saara karo war waxaan xasaasiyad ba mase waa finkii nabraha wajiga ka soo baxayay ee bacteriyada keenaysa maxaa lagu kala saaraya waxaa lagu kala saaraya in nabarkan marka wajiga kaaga soo baxo afka malax ku wato xanuun leeyahay iyo kaar laakiin xasaasiyada cagsiga ku tahay xasaasiyadu ayada cuncun bay leedahay nabarkeedana biyo wata soo marka labadaas uma kala socono sidayna u wala socneen isnadaamiska xasaasiyada caadiga ah ee allergiyada jirka ku dhacdo waa tahay doctor mostly dadka badankood
markii ay cunayaan chickenka ama malayga ama ukunta dadka qaar waxay yiraahdaan waxaan ku qabnaa xasaasiyad arrinkaas maxaa ka jira way jiraan arrinkaas dadka qaar baa xasaasiyad ku noqdo cuntooyinka qaar oo xasaasiyaddu markay la xisaabinayo ee la ogaanayo xasaasiyaddan intay kaa soo gashay saddex anna baa la xisaabiyaa angalka koowaad waxaa la fiiriyaa cuntada ayaa historygeeda laga qaada qofka maxaa xasaasiyad ku tahay ma ukunta ma malayga ma digirta ma salbukada ma jikinka ma basbaaska maxaa adiga xasaasiyad ku tahay oo ku dhibay historygaasaa laga qaadaa waxaa laga qaadaa inkastoo hadda la helayabo oo annaga hadda aan haysano food allergic test oo ah maxaa xasaasiyad ku tahay cuntada la baari karo hadda caalamku waa sii tadawuraya Soomaaliya caafimaadkeedu China sidii loo baarayay ayaa intana looga baaraa marka waxa kale oo la fiirshay angalka kala ah environmental bi'ada qofkani ma wuxuu xasaasiyad ku qaaday wuxuu isku biifiyay wuxuu marsaday detergentiga waxyaalaha wax lagu dhaqo miyuu xasaasiyad ku yahay ma dhastiga uu xasaasiyad ku yahay ayadana waa la xisaabinaya angalkaas la fiirinaya waa bi'ada deegaanka muu xasaasiyad ku yahay waxa kale oo la fiirshaa dawada qofka mararka qaar wuxuu xasaasiyad ku noqon karaa ama reaction ka sameey karaa ama korkiisu u gaduudo karaa dawo uu qaatay nooca ugu badan ee Soomaalida xasaasiyad ku noqotay waa painkillers kuwa loo qaato haddii la kama qaadi yahay xanuun baabiya nooca ugu badan waa qofkaas wuxuu develop gareynaya drug eruption oo ah jirkiisa inay wareeg ku sameysmaan inuu biyo gashto dad badan noogu imaado oo la yiraahdo cudur la yiraahdo Stephen Jones syndrome cudur la yiraahdo ay develop gareeyaan allergy ay keentay laakiin dawo marka qof kaste markuu jirkiisa maqaarka wax ku arko waxa la rabaa inuu dhakhtar maqaar la tashto oo yiraahdo waxaan maxay yihiin hadda waxyaalaha effectiga nagu haya waxa kamid ah ChatGPT qofka sawir buu iska qaadaya markaas wuxuu leeyahay cudur heblaaya qabtaa ChatGPT dhakhtar ma wuu soo dhaweey karaa dadka qaar waa well experienced saddex kiisa maalin iimaatay markaas waxay dhaheen doctor cudurkan ay hayo markaas waxaan dhahay cudurkan waa cudurkaas noocaas oo imaada qofkaas waa aqoon-yahan wax ku kala saarto haysta muxuu dhahay correct waayo ChatGPT soo weydii waxyaalaha ugu yaabka badnay kamid ah kiisaska aan la kulmay hadda marka ChatGPT mararka qaarna waa ku wali karaa mararka qaarna diagnosis sax ayuu gaari karaa laakiin wax kasta waa ina consultation dhakhtar maqaar aad la tashato waxyaalo badan oo qaldaa jirto dad oo baan ataa ku soo riday yiri cudurkaas qabta oo ana cudurkii ahayn ayaa arkay doctor waxa ka dhawaajisay in ChatGPT-ga uu saameyn weyn ku yeeshay ma jira AI-gan iyo teknoolajiyaddan cusub ee hadda adduunka u sii jaan roganayo faa'iidooyin aad ku qabtaan ka dhakhtar ahaan ka dermatology ahaan والله فائدين بدن وريسيج وسيسهلن بعد وحكو أوجا كرتا سيسهلن بعد وحكو بحث جيد وهيلي كرتا سيسهلن بعد ريسورس يميله أديك سنة أد فادر information كرادي كرتا وحيالا بدن فائدة وليه هاي أنا أقدر لنا عكلاني effective نقوليه هاي عذران هين هي وقفك كسو عبيا مركا أديك وحقول إيمانية أسيقو وحكلا آمنسن سوى إناد tiraada waxaan waaye sidaan u baaraynaa sidaan waaye sawirkiisa aad tusisaa markaas uu qancaya oo leeyahay ha sax waaye waxaan dhalada iga tusinaysid iyo cudurka ay tusinaysid iyo wixii ay isleeyihiin soo marka qaar way ka wareereen laano waxa yeelay waa picture la gelinayo marka dhibaatada nagu leeyahay waxa waaye dadna baaniga taaga nooga riday dad aqoon lane aqoonta inay ka soo dhax saarseen ayay wixii hay ogaadeen laakiin ay la soo aadeen dhakhtar maqaar si ay ula tashtaan waxa jirkooda ka soo baxay waa tahay doctor maalin walba waxa la kulantaa bukaano kala duwan ma jira case aad xalisay oo xasuus kugu yeesha shakhsiyan علشان waxa la jeedaa su'aashaas si faahfaahiyo case naadir ah ama case adag oo si adag ah ku xalisay oo ilaa hadda maskaxdaada ka biila kiisaska ugu badan Soomaalida kiisas badan ayaa jira oo maalin la arka la xaliyo laakiin waxyaalaha oo reerka aad baa looga fiirsadaa one of the case oo kamid ahay kiiskan oo kale wuxuu lahaay basal cell carcinoma cancer ku dhaco maqaarka kiiskan
wuxuu wareegayay 7 sano ayuu waddanka dhex wareegayay hal qof oo waxaan maxay yihiin hal qof oo dhaho waxaan maxay yihiin waa la waayay yacni annaga golden biopsy wax la yidhahda aan u samaynay oo ah in skin puncture biopsy aan u samaynay cadaan ka qaadnay cad markaan ka qaadnay waxaa soo baxday kiiskan oo sidaan ah inuu lahay basal cell carcinoma oo ku dhacday intaasoo sano uu wareegayay soo kiiskaas raada uu yeeshay leanno maxaa yeelay mar hore haddii la ogaa lahay weyga approachka ama wadada loo isticmaalayo qofkan sida sabka habka loo baarayo ayaa horta waxay u baahan tahay tab iyo hadda waa la kaama qaadiyahay qaab marid haddii aad cudurkii meelaan ahayn aad raadiso haddii cudurkii aad iska dhayalsato aad istiraado beri yowm alqiyaama waa lagu weydiinayaa leanno maxaa yeelay mar kasta waa inaad approach iyo guideline ku socotaa oo ah waxaani diagnosiskiisa ma la waayo haa anaa ka gaarayo kiiskan hadda meeshan ka muuqdo purely diagnosis sax ayaan samaynay asigana approachkii saxda aheed loo samay lahay ayaa u samaynay another case kale ayaa jiro oo faruurta kala ahay sida kiiskan oo kale kiiskan waxaan ka qaadnay cadkii markaan ka qaadnay ayaa waxaa soo baxay squamous cell carcinoma squamous cell carcinoma markuu soo baxay kiiskaas gobollada ku yimiday waana soo tigsaday waa noo yimiday waxaa soo baxay inuu kansar ka qabo faruurta baaritaan baa u samaynay baaritaankii waan sugnay jawaabtiisa soo baxday resultiga biopsiga kiiska waxaa lagu diagnose garay squamous cell carcinoma inuu leeyahay oo libka ah oo faruurta kaga dhacay kadib waxaan u dirsanay CT scan with contrast anagoo iska kaashanayna dhakhtarka cunaa iyo sanka iyo dhagaha wax soo baxday inuu localized yahay oo lymph nodeski wax dhan loo gaaray kiiskii natiijadiisa waa tanaa sidaanaan ayay noqotay oo aan bishintiisii dhakhtarka cunaa iyo sanka iyo dhagaha ayaa la wareegay natiijadiina sidaan ayay noqotay 6 bilooda kiiskan laga joogaa waa wacay saameynta ugu yeeshay kadibna waxaan dhahay ka waran bishintaadii wuxuu ugu dhacay sida ay maalintaan dhashay ii aheeday ii tahay ilaa hadda yacni wax probleme ama xanuune aan ku qabo ma jirto so marka qofka in la approach gareeyo la manage gareeyo qofkii kaa saacidi lahaay iyo xali lahaayna aad ku admin garayso waxay faa'iido u tahay bukaanka absolute doctor waa case xiisa leh waana kaaga mahadcelinaynaa labadan case aniga saameyn iigu yeeshay maadaama absolute waa kaaga mahadcelinaynaa adeega quruxda badan ee bulshada Soomaaliyeed u hayso xagga allana waxaan rajeynaynaa ajir aad ka heli doonto doctor ardayga maanta jaamacadda soo dhameeyay medicine soo dhameeyay ee raba inuu diyaariyo maadada dermatology-ga muxuu u baahan yahay maadada dermatology-ga waa maado oo baaxad leh oo ballaaran oo organ walbaba xiriir la leh li'annahu maqaarka wuxuu soo bandhigaa wixii gudaha hoose ku dhacay ama organada kale jirka ku dhacay ayuu soo bandhigaa waa muraayadii laga arkayay maqaarka marka maado walba ayuu xiriir la leeyahay marka ardayga dooranayo kulliyadda maqaarka waxaa la rabaa inuu 3 shuruud u fiyo kow inuu horta maadada jecel yahay لأنه waxaan jeclayn maka guul keenaysid lambarka labaad inuu u fiiriyo wax la yiraahdo maadadani haddaa ku soo baxdo furaskeeda iyo majaalkeeda iyo mehelaysa inuu u fiiriyo maado walbana uu ku saleeyo uu dooranayo lambarka saddexaad waxa waaye inuu asiga ka bixi karo haddii inuu galo oo 2 sano markuu dhiganayo asigoo saaxiibada galee gal ee ka ahayd oo galo laakiin 2 sano markuu wada uu ka niyay jabo yiraahdo maado kale haddana diyaarinaya soo waa 2 sano ka khasaartay walays ugu noqonaysa marka horta waa inaad adiga ka bixi kartid lambar 2 waa inuu waalidkii lacagtiisiine maadaama maadadan qarash lagu bixinayo lagu baranayo maadadani dermatology-ga dadka dunida waxay ka tahay major oo ah maado weyn oo brand oo waxa ka sareeyo on wadnaha maadada labaad ayay soo gashaa
xagga adduunka takhasusida markii la diyaarinayo marka inuu waalidkiina ka bixi karo qarash ahaan saddexdaa afartaas angal hadduu fiiriyo ay mid kasta waa jeclahay furas waa jiraa waa ka bixi karaa waalidkay waa ka bixi karaan ou saxo dee maadada wuu diyaari karaa wuuna ka bixi karaa biritana bulshadiisa soomaalideed way u baahan tahay dad badan oo maadadan aqoon oo dhiibliya u leh in la helo waa tahay marka ardayga uu diyaariyo maadadan ma jiraan skills kale iyo waxyaabo kale oo laga rabo inuu buuxiyo si uu u noqdo dhakhtar hawlgeli karaa oo dhakhtar maqaar ah oo bulshadu ay aamini karto maadadan skillskeeda ugu horeeya ee la barto waxaa ka mid ah horta inaad takhasuskeeda marka ugu horeysa aad leedahay background oo medicine qof ama nursing bartay ama bartay haddii waalidka maqaadi ahay lab horta ma ku takhasusi karo laakiin marka ugu horeyso waa inaad tahay qof general medicine soo bartay dan kadib waxaad diyaari kartaa sub speciality wax la yiraahdo ayada nafteeda waxa iska leh takhasus kale oo markii la diyaarsho guud ahaan ayadana oo masterkii laga qaato ayadana qayb kale la sii diyaari karo oo waxa kamid ah cosmetic ka mid ah timihii inaad ku takhasustaa ka mid ah in cadadka maqaarka sida loo qaado inaad ku takhasustaa ka mid ah ayada nafteeda waxa sii leh sub ayada groupyo leh oo inaad noqon kartaa haddii waalidka maqaadi yahay plastic surgery oo ah maqaarka dadka ku gubtay iyo departmentigaas haddana diyaari karta adoo toos u aadi kara department kastaba ama qayb kasta waa tahay waxaan rabnaa marka inaan doctor ogaano qaladaadka ugu badan ay sameeyaan dadka markay isdaaweynayaan oo ay rabaan in shakhsiyan isku daaweeyaan ama iska daaweeyaan maqaarka xasaasiyadda allergiga inta badan waxaa aragnaa in dadku ay xaafadaha ayagoo joogaan la is yidhaahdo farmashigaas tagoo kaniini soo qaado ama sharoobadaas soo qaado maxaa ka dhalan karo khatara arrintaas waxaa ka dhalan karo horta anagu dhibaato weyn bay nagu haysaa ka maqaar ahaan si fiican dhibaatada ugu weyn ee nagu haysa waxaa ka mid ah qofka inaanan cudurkiisii kareema ahayn la siiyo cudurkii wax lagu daaweyn lahay oo kareem aan ahayn lanno maxaa yeelay waxa go'aaminaya waa qof aanan takhasus u lahayn soo marka dhibaatada ugu weyn ee nagu haysa waxaa ka mid ah cudurkiiyo bedelan oo shaybkii soo bedelay inuu noo yimaado qofkii soo aan iraano markii uu noo yimaado sidoo uu ekaay qaabkuu u yeelay rondimo ahaay intaan daawada qaadan ka hor waayo maqaarka haddii la marsado kareem waa fitsama markuu fitsamo waxa qaldamayo diagnosiskii saxda ahaa iyo qofkan complainki marka hore intuuna kareemka farmashiga ka doonan oo lahay soo marka dhibaatadaas anaga kala kulanaa inkastoo mar kastaba aan xeeladaysano oo historyga si fiican leano qofka dermatology-ga markaad sameynaysid waa inaa full history ka qaado cabashadiisu uu nafiso qofka genesis meelaha oo hadalka badan loo baahan yahay maqaarka ka mid ah leano maxaa yeelay qofka wuxuu kugu aaminayaa waa jirkiisa waa meeshii quruxdiisa iyo jamaalkiisa soo muujinaysay aragtida yani waxa kale way u qarsan yihiin qofka laakiin qofka wuxuu muujinayo waa qof appearance-giisa shakligiisii ayuu ugu aaminaya soo su'aalo badan buu nagta kaaga dhigaya marka waa inaad jaanisiisa ku nafisaa waad wareysataa marka jaalanjiyad iyo taxadiyaad ayay nagu hayaan dadka marka maxaa saxe waxaa saxe haddii uu qofka dhibaataysan oo maqaarka la kulmo ama maqaarkiisa wax ku arko inuu dhakhtar maqaar la tashto hada afdalu dariiqa meesha saasa wanaagsan laano maxaa yeelay wadada u soo gaabanayso halka wadada ay ka dheeraan lahayd waxa laga yaabaa markay noo imaanayaan in 3 kareem 4 kareem ku soo tijaabiyeen ee waxna ka soo naas cadaawayeen waa tahay doctore si caadi ah maalin walba waxaan u aragnaa dad baaldi inay soo dhigtaan wax ku qasaayo kiimikooyin isku daraya kala duwan maxaa ka dhalan karo khatar ah si kale haddaa u dhaho doctore si ay bulshadana daawanaysa ay si fiican ugu fahmaan su-aashayda waxaan aragnaa maadooyin la isku daro marka maadooyin la isku daro leeyahay creams kala duwan calashaan in la isku daro bacal lagu xiro gabdhihii Soomaaliyeed iyo bulshadii si guud marka uu yiraahdo gabdhaha kaligood anoo hadda maxarbaabeen si guud bulshadii Soomaaliyeed laga iibiyo ayagoo loo sheegay in haddii ay marsadaan daawadan ay ku cadaad doonaan
ama madowga uu ka fujin doono ama qof walbo siduu doono ay u yeeli karaan ayaga oo ayaga go-aanka ay gaarayaan warshadii wax soo saarka in ayaga yihiin oo go-aanka ay gaarayaan oo ay sameynayaan qof walba wuxuu rabo waxaa laga yaabaa hal baaldi daawo ku jirta in 3 qof oo 3 arrin kala rabta qofna uu rabo inuu caddaado qof xasaasiyad haysta oo uu rabo in xasaasiyadii laga baabi'iyo qof kale oo raba in hawlo kale u isticmaalo 3diiba halkaas baaldi looga daraayo wuxuu rabay haddana loo sheegayo in wuxuu rabay ay ka daaweynayso arrintaas maxaa ka dhalan kara oo khatar ah khatar caafimaad oo badanaa ka dhalan karto weliba khaasatan maqaarka markay ka tagtana waxay saameyn doontaa organada kale ee jirka maqaarka dhibaatada ay ku keenayso daawooyinkaas horta la isku daro waa steroid waxa ugu waaweyn daawooyinkan annaga waxaan u isticmaalnaa cudur caadiyan ku daweynaa daawooyinkan hadda la isku qasayo waxa ugu weyn daawooyinka la qaato ee isticmaalaan waxaa ka mid ah hydroquinonka waxaa ka mid ah betamethasonka mamatosonka hadda mercuryga intaasaa la isku daraa daawooyinkay qasayaan daawooyinkan sida saxda ee cudura lagu daaweeyaa waa daawo loo isticmaala different disease laakiin dhibaatada ee khatarta ay u keeni karta iyo harmfulka ay maqaarka u keeni karto waxa kowka inuu horta maqaarkeeda qofka khafiif u noqdo markuu qofka maqaarkeeda khafiif noqdo laano maqaarku waa difaaca koobaad oo qofka bini aadamka leeyahay waa first line defense Allah ilaahay aanu ku sameeyay marka soo qofka wuxuuna garanaynin faa'iidada uu leeyahay maqaarka lowla uu garan lahay mausan u isticmaaleen baqasqas dhibaato fara badan bay nagu haysaa maqaarkaasi noqonayo gabadha waxay isku arkaysaa stringent markers badan tira badan waayo weakness ku dhacaya maadada melanin oo kalarka jirka u sameeysto marka libaaxiin bay dhahan Soomaalida libaaxiin tira badan baa ku dhacayso waxa ku dhacaysa hadda la kama qaadiya overdose oo steroid banaanka markii anaga steroid uu jirkeena soo deeyaa jirto cortisol so til banaanka markay ka qaataan tii gudaha ee adrenal glandiga laga soo deynayo waa yaraanay xillada banaanka ay ka soo socdaan hadhow marka waxa ku dhacaya wax la yiraahdo complication adrenal crisis oo qanjirka kelida korkeeda ay soo dameynaya cortisolka inuu crisis ku dhaco oo burburo markuu crisis ku dhaco waxa imaanaya cudurada ka dhalanaya Cushing syndrome kamid ah inuu qofka yeesho moon face waji weyn waji bucbuc steroidka complication ko keena kamid waxa kamid ah maqaarkii markuu si noqdo bacteria ka soo iska galay maalin la arko waxa la tacaalnaa qof maqaarkiisi ay malaxo meel kastaba malax ay ku jirto waxa kamid ah in qofkii ay bacteriaden anaga bacteria jirkeena oo aan cadow nagu ahayn jirto Staphylococcus aureus oo normal florada caloosha kamid dhibaatada ay leedahay waxa waaye steroid badan la isticmaalay thin waay maqaarkii meel yar ka dhaawacmayso qofkii bacteriada galayso lugtiyaaba gaduudanba wajiga gaduudan waji gaduud bay keenaysaa waxay keenaysaa discoloration oo face ku dhaco inuu kalarkii iyo haaro badan wajiga ka sameeyo so dhibaatada ay maqaarka u keento qasqaskaasi waxa dawaaye ma cadadna يعني لما سو كوبي كرو Soomaalida ma dareensana khatarta ayagu waxay ka fikirayaan xaaladda hadda taagan laakiin future line-ka wax dhibaatada ka dhalan karto oo ka ratimayso haddii ogaalahayaan marnaba ma soo tagin faa'iidooyinka oo maqaarkeena loo leeyahay waa difaaca koobaad wuxuu ka qayb qaataa in vitamin D-gaada ama lafahaada vitamin D-ga inuu sameysmo ayuu ka qayb qaataa waa organ dareemo ah oo sensory organ oo u shaqeeya wuxuu sameeyaa absorption jirka wax buu ka nuugaa oo jirka markuu nuugayo yani kareemka inta la saaro jirka waa nuuga cudurada lagu daweeyaa soo jirka markuu u nuugo wuxuu u gudbinayaa jirka kale organada kale soo waa absorption u shaqeeya wax buu soo dhiijiya oo jirkaadu qaleylka ka ilaaliyaa hadda la kama qaadiya siba ma soo deeyaa waxyaalo badan oo jirka qabta soo faa'iidada uu maqaarka leeyahay waa heat regulation jirkaada heerkulkiisu in la isku haayo ayuu ka shaqeeyaa maqaarka waa organka ugu weyn bini aadamka ee ku taxaaran soo qofka largest organ in the body markii la yiraahdo jirka dhan organka ugu weyn waa maqaarka enteric organkan liverka ugu weyn laakiin maqaarkii sidaas oo shaqadaas badan qabanaya ee dareemaha ahay difaaca first line ahay
wixii markay daawadan isticmaalaan howlgab baa ku dhacayso wax walbana inay gudbaan ayay goosgareynaysaa marka anaga dhibaatada ugu weyn ee maqaarka ee Soomaalida awareness ay ku ahayn waa khatarta qasqaska dhibaato fara badan baa ka imaanayso qofka inuu hypertension develop gareeyo qofka inay sokor ku dhacdo waxaasoo dhanaa ka dhalanaya complication hadda aan ahayn hadda dhalinyarnimo isku celinay laakiin day by day waa imaanaysaa inay khatartaas dadka iibsanaya marka qasqaska iyo hawlahan la isku qasaayo mostly waxay ka raadiyaan qurux iyo cadaan quruxdaas iyo cadaantaas ilaa intee sii jiri kartaa ilaahay ayadiisa quraanka wuxuu ku dhahay laqad qalaqna insana fi ahsani taqwiim ilaahay wuxuu quruxda waxa dadka bini aadamka waxa ka abuurno leeyahay ahsan yani waa ahsan waa markii naxwada la joogo miisaanka la saaro waa afcal waa meesha siqal mubaalaqa meesha ugu sareyso ayuu ilaahay ka abuuray qofka marka ilaahay quruxdii oo ilaahay qurxiyay ku qanci waay de horta marka ugu horeyso waa iimaaniyad baan ugu dhahaya meeshan laga haysto qofka inuu qasqas qaato waa iimaankiisa daciif marka qof iimaan leh qasqas ma baadayo ilaahay wuxuu ka abuuray ahsan taqwiim kaasa qanaaca to ilaahay ku qanciya qanaacada waxa la yiraahdaa qof ka taajirsan ee ka dabageysa daadan waxaad adigu ilaahay ku siiyay daa ku qanacsanayn de hadii carro lagu gura xataa ma qarciisid ilaa intee sii jiri kartaa marka quruxdaas ay raadiyaan way baaba'aysaa laano maxay dhibaatana way ka dhalani dawadii inay addicted la noqdaan ay markasta doontaan ayay noqonaysaa laano maxaa yeelay kalarku isbedelaa markastaba xididada soo muuqanaya visible oo vascularka la arkaya marka inay soo celceliyaan maanta oo dhan wax jirayana ma way isbaabiinaya qofka isbaabiinaya qofkii waxbad isku haysto waa istooganay qofka qasqas qaadanay waa tahay doctor waxaanu ku sii siqaynaa qaybihii ugu dambeysay ee barnaamijkeena kalkaal podcast doctor waxaan rabnaa inaan ogaano qoraxda iyo saameynta maqaarka ay ku leedahay qoraxdu saameyn nooceen ugu leedahay mostly waxaan aragnaa in dadka qaarna ay ka raadiyaan vitamin D oo dadka qaarna isku dhigaan qoraxda dadka qaarna saameyn ay ku yeelato marka saameynta qoraxda ay bini'aadamka ku leedahay rabnaa inaan ogaano si kooban hadaan uga hadlo qoraxda oo aadan ka haysanin qorax difaaco ama sunscreen aan ka qaadanin waxay keeni kartaa gabow soo hormaro waxay keeni kartaa midabkooda darsoomo qorax badan oo kugu dhacdana waxay keeni kartaa skin cancer ay develop gareey kartaa inuu maqaarka kansarka ku dhaco ayay qayb weyn ka tahay marka soo qoraxdu sax waaye vitamin D baa ka yimaada laakiin xilliyada qabowga ee qoraxda soo baxayso ayaa la isticmaalaa oo ugu fiican waqtiyada ugu fiican ee vitamin D synthesis-ka la sameeyo waa waqtiga subaxa iyo galabkii hal rabaa qoraxda waxaan advice ka siinayaa inuu qaato qorax difaace ama sunscreen ku habboon jirkiisa soo iskaga difaaco qoraxda leano qoraxda tirada badan ay kugu dhacdo waxay keeni kartaaba haraha wajiga soo bax waa tahay doctor waxaanu rabnaa inaynu ku soo gabagabayno saddex talo oo aad u dirayso ama aad la wadaagayso bulshada Soomaaliyeed oo ku saabsan maqaarkooda iyo si guud maadada aad soo baratay ee dermatology-ga maqaarkaada inuu qurxanaado hadaa rabto horto cunto caafimaad la cun sidoo kalena hurdo fiican oo 8 saac oo xiriir ah qofka inuu hurdo helo sidoo kale inuu qaato kareemada jirka oo lagu ilaaliyo qaleelka iyo kareemka lagu ilaaliyo qoraxda intaas oo tala ayaan sii lahay iskana ilaaliyo kareem aan dhakhtar u qorin waa tahay aad u maasan tahay doctor Saalax Sheekh Xasan Ibrahim sida quruxda badan ee aad nolol wadaagtay khibradaada way aragnimadaada iyo sheekadaadaba waan kaaga mahadcelinaynaa halkaad naga daawanaysaan waa kalkaal podcast waxaan kaga mahadcelinaynaa waqtigiina iyo juhdiga aad ku bixiseen muuqaalkan daawadashadiisa waxaanu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh